aad iyo aad baan idin ammaanayaa waqti walba waxa aniga markay wareysanaysaan waxa runta ah ee idinku aad soo maqashaan ayuun baa aniga igu wareysataa anna runta aan sheegay madaxweynuhu safar ka horreeyey waa kii Abu Dhabi uu ku tegey 150ka madaxweynayaal iyo madaxweyne ku-xigeen iyo gudoomiyaal iyo wax walba uu arkay taas horta markii hore ahayd talaabo qaaday soo qurux badan waxa ka dambeeyay meydii baa ka roo 150 waraaqood buu taana dira oo meel walba u dira taana wax qabadka madaxweynuhu sameeyay bay ka mid tahay labada waraaqaha uu diray 150ka dawladooda u diray iyo Abu Dhabi oo 150na intaas wuxuu raaciyay Djibouti horta marka ugu horeysa anu safarka Djibouti waan ka soo horjeeda maanta ma ahayn inuu tago waxa laalo waxaynu ku sameynayna ma jirto Djibouti madaxweynuhu baa inala culuubay laakiin dadkeeda waa ogol lahay reer Djibouti boqol baan ogol lahay dadka in badan baan ogol lahay marka waxa weeyaan madaxweynaha Umar Geyle baa aad iyo aad nagu shiday isaguna waxaan isku haysanaa waa doonika waa dekada Berbera inay dhaqaaqin buu jeceli ay tiisoo ay noqoto marka ugu horeysa anu nin dooniga ba ii diiday inuu madaxweynuhu u tago anu ma doonayo inuu meel kale tago Kenya inuu ka wanaagsaneyd Ethiopia inuu ka wanaagsaneyd Abu Dhabi baa taana waa col Abu Dhabina waa col Abu Dhabi kii wax walba inoo qabatay ayuu ka soo horjeeda oo isqabteen marka waxa weeye anigu marka ugu horeysa madaxweynaha raala ahaade dood ku degdegtay socodka caynkaas waad ku degdegtay waxna cid kama weydiin adigu baa xusbigaagii baa berigii hore halka ayaa gacan lahaayo aad marka hore tiin baa oofiyeysay baan maleeyay laakiin waxa weeye innaku Djibouti lama culleyn mana doonayno anageelana la culmanayn laakiin isagana la culoobi madaxweynihii aad ka bedeshay waa kii diiday inuu ka soo qayb galo deen halka ku xisaabtantaa way ahayd madaxweyne waad ku degdegtay marka ugu horeysa waa madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay anigu safarka Djibouti maan jeclay mana jeclaysan Soomaalina way ka yaabsan tahay madaxweyne wadani baa wali xusbigii wadani madaxweyne waa isma dhigin wadani baa wali dhaxta baalanaysa marka ugu horeysa midda labaad waxaan ku tusayaa kale madaxweyne kastaba dhagaxii Siinaay bixiyay ee cusba ee madaxweynihii hore ku shaqeeyay dhooba saarta taasoo waa khatarteeda ballaaran waxa weeye raadkii madaxweynihii Siinaay iyo kii ina bixiba waad ku tumatay taan oo ma yar ayaad u dhiibtay dhoobada saara calankan aad ku buufisay taasoo waa mid waxa kale geedkii guurtida gaaraad soo saarta hortaadu maray xididadii baa loo soo saaray warmada xididkii ma soo saartay geedkii oo gaaraad soo saartay oo jirtaa marka aad maamusha war magaca guurtidana aad iyo aad baad ugu cayaartay boqolkiiba de magac u bixi qolada imika ku shaqeyn jiray magac u bixi kale laakiin magaca guurtida ka daa geedkiina dib ugu celi xididadiisa adaa geedkii ka soo bixiyay
gaaraad soo saartay hortaaduu mar miyaad ku ceeboobi caalamkaad arkaya waxaan caalamka u sheegaynaa inaan weliba madaxweynuhu waddan u yahay aanu madaxweyneba isu dhigin isuma dhigin dee inamadii yareeraabaa weli wata xusbigiisa ku qaylqaylin jiray ayaa madaxtooyadii iyo wasiirre baraaya mashaakil iyo guurtuu ku magacaabo waxaas ku magacaabo madaxweyne dee madaxweyneaad tahay xusbiga waad ka baxdee qaranka u shaqee 18 May waxa weeyaan marka ugu horeysa waa sharciyan dadka ogol 18 May dadka ogol madaxweyne ma ogoleen madaxweynaha keenay dalka 3 bilood buu joogay 4 bilood muu keen intaaba mucaarad buu ku awligiiba muu iman xus la dhigay ma buu iman jirin laakiin waa loo yimi maanta ما تفهم سيدا الله حسوس حد بان جيد شيئين مدحوين دوبada mariyay sidaayay ka soo bilaabay dadka uu sheegay dhagax wuxuu kii madaxtooyada dalkoo dhan wada dhagaxa cusub ahaa imika doobada la mariyay miyaad arkay madaxweyne miyaad arkay madaxweyne tooda waa loo markareeyay dib baa loo casriyeeyay maxaa mushkilada ku jirta ma taas waxa weeye dhagaxa ka wanaagsan isbarbar soo dhig dhagaxii iyo tan isu soo barbar dhig maanta labada isu soo bar doobada wax weyn waa dar oo ma garaan oo wax loo sameeyay bilaay masaakil waxa tiri madaxweynuhu waxa uu taa gud nabadeed oo soo mariyay jidka halbowlaha maalintii 18 May isaga watay u shaqeeyaan ma isaga u shaqeeyaan mise qaranka u shaqeeyaan ma isaga u shaqeeyaan qarankaana u shaqeeyaan guurtida u shaqeysa waxa weeyaan saacadeedii waqtigeeda waqti baan ku shaqeynaa iyo waqti xildhibaan laba sanadood ee colaaduhu jireen kuwii deegaanada dhowr iyo 10 sano jiray oo imika xukuumadda soo afjartay jireen intaasoo dhan xildhibaan baad ahayd guurtiduna way jireen waxaasoo dhan marka qaban weydeen yaana ahayn in la idinka maarmo adeer weli adigu in yar baa tahay in yar baa tahay aan kuu jawaabe adeer waxa weeye allaga sheegay adigu jeegta waxa weeye guurtidu waxay leedahay shaqo soo ma fahmin hawl bay leedahay qaran baa u shaqeysa nin uma shaqeyso adna kuma shaqeyso guurtidu way tagaysaa meel walba way tagi doontaa waana tagi doontaa waqtigeeda saacadeeda madaxweynaha waxaad sheegtay inuu u shaqeeyo kaliya xisbiga wadaniga Soomaaliya wali ma noqon wali xisbigii buu joogaa waxaan ugu baaqayaa madaxweyne soo haabo madaxweyne isu dhig والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها qaranku wuxuu sheegay in jidka isku xidha Djibouti iyo la dhisayo Boorna. Taasi waa iska sheekay. Waxa ma jiraan. Waxa weeye fadhiga dadka ka qaadaya gaadiidka oo dagoona aan marnay. Soomaaliya waxba kama jiraan. wuxuu geela uu soo sheego kaasum buu soo sheego mana jirto wasalaam calaykum warahmatullahi اعترافك إنك اللي قاعدين أفريقيا كسعودية وعويه سومالي لانتم بعد اسكت شتى ولي أنكم ما هينو دولتن meel ay marayso iyo Soomaaliland ba isku tashato israafka reeyaysa dadka halka jooga oo baa caynkaas wali mushkilad ma lahayn raalaha hada